الله وين ربي بوحداد وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيغا لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan wadnaa taxanaha aan uga hadli doono magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo aan sharaxaad faahfaahsan magacyada Ilaahay ka bixin doono. waxaan wadnaa inaan ka hormarino casharo aan u bixinay casharo horodhac ah si hadhow ay dhuuxid iyo faham iyo weelaan badan aan u helo marka aan guda galno sharaxaadda magacyada Ilaahay. cashirkan waxaan uga hadli doonaa waxaan u bixinay qofka bini aadamka ah xiriirka uu la leeyahay xuska Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo Ilaahay baryadiisa. waayo ummadda Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waa ummad la rabo loo abuuray loo sameeyay inay noqoto ummadda dunida ugu ummadihii soo maray oo dhan ummadda ugu sharafta badan ugu karaamada badan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas. sida darteed culimadu waxay sheegeen axaadiis badanna ku soo aroortay in cibaadada asaasiyaadkeeda ama saldhigyadeedu ay ka mid tahay baryada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. الدعاء مخ العبادة. waxay kale culimadu sheegeen maqaamaadka ay leedahay cibaadadu kuwa ugu sareeya inay ka mid yihiin baryada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayagoo dhinacyo kala duwan ka eegay. dhinacyada ay ka eegeen waxaa ka mid ah quraanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka laga reebo ducada wax kasta oo nabiga calayhi salaatu wasalaam looga baahdo nabiga la weydiinayay Ilaahay baa quraan soo dejinayay. ilaahayna wuxuu oranayay waxaad siisaa jawaabtaas. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. meeshaas culimada waxay ku sheegeen marka inay jirto wax u dhaxeeya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ah oo la leeyahay dadka u sheeg ilaahayna uu quraankiisa ku soo dejinayo. laakiin marka ay timaaday bay yiraahdeen culimadu ilaahay baryadiisa waa laga saaray qul waxayna noqotay wax qofka iyo ilaahay si toos ah حرير وقدحيه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. علماء مركو حير هذا الإله سبحانه وتعالى مركي سيد إلهي الله بريه وكجوابي وحورهي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. مركا إريق عبادي وشرفت أدومدي سو إلهي سبحانه وتعالى وشرفيه وكسفين إني أسق أدومدي سيهين. wuxuu kaloo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala isticmaalay fa inni qariib ma uu soo oranin adoomadeedu way ii dhow yihiin. wuxuu yiri adoomadeeda aniga u dhow. waxa kaloo culimadu ay aad uga hadleen qofku marka uu qalbigiisa waxaan Ilaahay ahayn uu ka saaro oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaligiis uu qalbigiisa geliyo markaas waaye marka uu dareemayo in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u soo dhawaaday oo asaga Ilaahayna aysan cidina u dhaxaynin. sida darteed waxyaabaha uu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadda Nabi Maxamed ku sharfay ku karaameeyay waxaa ka mid ah inay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay ayagu toos u baryaan Ilaahayna uu u qiray inay adoomadiisa yihiin ayna u soo dhawaadeen. ummadii reer bani Israa'iil oo ka mid ahayd ummadihii Ilaahay oo markii hore karaameeyay oo fadliyay wa inni faddaltukum 'ala al-'aalamiin wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-'aalamiin. marka Ilaahay u baahdaan waxay oran jireen qaal ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. sidaas oo kale ummadii Nabi Ciise ilaa xawaariyiintii naxnu ansaarullaahi dhahayay marka Ilaahay u baahdaan inay baryaan Nabi Ciise u imaanayeen waxay oranayeen hal yastatiicu rabbuka an yunzila calayna maa'idatan min as-samaa. markaasaa Nabi Ciise Ilaahay u baryay oo ducadii uu Ilaahay u weydiinayay. laakiin ummadda Nabi Maxamed meeshaan dhexe waa laga saaray. qof kasta oo muslima oo ummadda Nabi Maxamed ka tirsan wuxuu helay inuu Ilaahay toos asaga wax u weydiisan karo. was'alullaaha min fadli ud'uunii astajib lakum. sida darteed ducadu waa shay loo furay inaad adiga awood u yeelato inaad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala si toos ah u baryi karto si toos ah u tuugi karto Ilaahayna isla markiiba uu ku siinayo jawaab. walidaalika culimadu waxay yiraahdaan ducada markaad Ilaahay ka barido oo wax weydiisato saddex shay baad helaysaa midkood. marka koowaad inuu Ilaahay ducadii wixii aad weydiisatay wax ka khayr badan kuugu bedelo. ama haddii Ilaahay sida uu koonka iyo sunanta dunida uu aasaasay oo qadihiisu ku dhacay haddii ay waafaqsan tahay ducadaasna in lagu siiyo. haddii kalena in deganaasho xasilooni maskaxdaada iyo qalbigaaga aad ducada laftigeeda
aad ka hesho. laakiin waxay yiraahdeen qofka waxaa laga rabaa markuu ilaahay baryayo ilaahay uma baryootamaysid ama luqadaadu inaysan noqonin baa la rabaa sidii inaad ilaahay wargelinayso ama sidii ilaahay inaad duruuftaada u sheegayso. waxaa la rabaa inaad u ekaato luqad baryootan ah oo isjilcin ah oo isdullayn ah oo ogolaasho ah inuu ilaahay subxaana watacaala asaga uu wax ku siin doono. sidaa darteed waa inaad ilaahay ku baridaa magacyadiisa kala duwan hadba midka aad u baahan tahay inaad ilaahay uga barido oo ay ka mid tahay alxayu alqayuum duljalaali waalikraam allah. yacni magac kastoo ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay inaad ku barido. sidaa darteed magaca alismullaahi alacdam adigaa waxaa lagaa rabaa inaad alxayu alqayuum isticmaasho, adigaa lagaa rabaa duljalaali waalikraam inaad isticmaasho. had walba magaca aad u baahan tahay ilaahay subxaana watacaala inaad isleedahay kanuu kaaga ajiibayaa inaad ku ceshato. sidaa darteed qofka muslimka waxaa la rabaa markaad ilaahay baryayso oo aad ilaahay isu dhiibayso inaad ka hormariso xusuustaada inuu ilaahay qalbigiisa uu soo galo. sida ilaahay lagu xusaa jirkaaga oo dhan ba ilaahay inuu xusaa laga rabaa. indhuhu waxay wax ku xusaan inay ilmeeyaan oo ilaahay dartiisa ay u ilmeeyaan. dhaguhu waxay wax ku xusaan inay wax dhegaystaan oo wax khayr la ay dhegaystaan. carabku wuxuu ilaahay ku xusaa inuu ilaahay u mahadnaqo, ilaahay inuu ammaano. gacmahaaga waxay ilaahay ku xusaayaan inaad wax ku dhiibto, inaad wax ku bixiso oo wax khayr ay gacmahaagu sameeyaan. lugahaaguna waa inay u dadaalaan, cibaadada ku dadaalaan, khayr ku dadaalaan, ummadda anfaceeda ku dadaalaan. qalbigaagana waa inay laba shay gashaa, cabsida ilaahay iyo rajada aad ilaahay ka qabto. oo taasoo ka dhalanaysa marka adiga oo dhan inaad noqoto qof xus ilaahay oo mar walba ku nool. qur-aanka markaa u fiirsato 4 shay oo waxaa jirta uu ilaahay subxaana watacaala ku tilmaamay akbar wax weyn inay yihiin. waxaa ka mid ah dikriga ilaahay subxaana watacaala qofka daa'imaya aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim. ilaahay subxaana watacaala dikriga wuxuu siiyey 4 shay oo u gaar ah. mid waxaa weeye inay joogtayn leedahay aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim. wuxuu kaloo ilaahay siiyey dikrigu inuu yahay xuska ilaahay subxaana watacaala inay tahay wax la weyneeyo waladikrullaahi akbar. wuxuu kaloo ilaahay siiyey markaad adiga ilaahay xasuusato asagan inuu ku xasuusanayo uu ku leeyahay xasuuso annagan ku xasuusanayo tadkuruunii adkurkum. waxay kaloo leedahay inaad badiso inuu ilaahay subxaana watacaala kugu ammaanay wadhaakiriina allaha kathiiran wadhaakiraat. waxay kaloo culimmadu yiraahdaan ilaahay 4 shayba wuxuu ku magacaabay inay yihiin 4 shay oo waaweyn. mid waxaa weeye jannada undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacdin walaalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila. midda labaadoo wax weyn ilaahay ku sheegay waxaa waaye cadaabta walciyaadu billaah walacadaabu alaakhirati akbar. midda saddexaadoo ilaahay uu ku sheegay wax weyn leeyihiin waxaa waaye inuu ilaahay raalli kaa noqdo. runtiina waa wax weyn inuu ilaahay raalli kaa noqdo waridwaanun min allaahi akbar. shayga afraadoo ilaahay uu wax weyn ku sheegay waxaa waaye xuska ilaahay waladikrullaahi akbar. sidaa darteed ilaahay subxaanahu watacaala wuu jecel yahay qofka bini aadamka ee uu abuuray in afkiisa iyo xusuustiisu mar walba ay ku jiraan. sidaa darteed dadka culummadaha oo ilaahay ku xiran oo la yidhahdo caarifiinta oo ilaahay aada u yaqaano qaarkood waxaa laga soo wariyaa hadal aad iyo aada u qiimo badan, aada u cajiib badan, laakiin marka hore aad ka naxayso. nin culummadaas ka mid ahaa waxaa lagu yidhi adiga ilaahay wuxuu yidhi ilaahay aniga maba xasuusto. marka haddaad maqasho ilaahay ma xasuusto waxaa laga yaabaa inaad aada u naxdo. maxaa dhacay markii la yidhina wuxuu yidhi aniga ilaahay maba ilaababa. marka macnaheedu waxay tahay inaadan marka horeba xusuustaadu haddaysan ilaahay kaba bixin oo mar walba aad ilaahay ku xiran tahay, mar walba aad ilaahay xasuusan tahay, waxaad helaysaa jidkii wanaagsanaa oo aad magacyada ilaahayna qalbigaaga ugu degi lahaayeen, magacyada ilaahayna aad wax ku xusi lahayd oo aad ku wardin lahayd, ilaahayna aad ku bari lahayd. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وحداد وذا تغنيني إساقا ودودا تشيغا لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني وحبا كما غرسونو قلبيقو وهن هدو يشو وحي وليبا وواضح إيو واسع ماليناهي الوكيل مغا إيسو ووارسان دي مانا